subax wanaagsan. Shaah iyo sheeko. Maanta oo taariikhdu tahay 23 Disembar 2025 sanadkii cusbaana nooga harsan yahay muddo toddobaad ah haddii Ilaahay nagu simo. Waxaan rabaa inaan halkan ku soo qaado bishan Disembar iyo 3 buug oo madbacadda Ciid ay soo saartay. Buugtan oo soo gali doona suuqa marka sanadka bishii ugu horeysa toddobaadka nooga dhiman yahay 2026 Janaayo. Saddexdan buug oo saddexdaba buug aad u qiimo badan ayaa waxaan rabay inaan wax yar idinka sii tilmaamo si aad ula socotaan. Buugga ugu horeeya oo buuggan halkan ka muuqda cinwaankiisuna yahay Dooda Diinta iyo Dowladda. Waxaa qoray Ambassador Maxamed Sheekh Dodish. Buuggan ambassadorku waxa uu ka falcelinayaa buug hore uu qoray nin lagu magacaabi jiray Aw Muuse iyo taariikhda baraaruga Islaamka. Buuggan wuxuu noqon doonaa waa qaybtii koowaad, qayb labaad baa jiri doonta oo soo bixi doonta iyaduna. Haddaba ambassadorku wuxuu ka hadlayaa qodob aad u muhiim ah oo marka mana ahan dood hadda bilaabantay, waa dood soo taxanayd tan iyo xilliyadii Islaamka uu dhashay kadib, waa dood soo taxanayd ka hor Islaamka oo wadamadan maaragtay Kirishtaanka ah iyo nimankii filosofiintii aasaaska dowladnimada markii la dhigahayay doodo bilaabmay oo diinta iyo dowladnimada ku saabsan. Marka si qaas ah wuxuu uga hadlayaa ninka ka horeeya oo Muuse la yiraahdo iyo qormadiisii hore oo ambassadorku uu qodob walba ku aadan mowduucan diinta iyo dowladda uu kala dhigdhigayo, ayadoo cid walbana ay u furan tahay inay akhriso kana falceliso wixii ra'yi ama ay ku biirin karto ama ay si kale u soo gudbin karto. Buuggan marka aad akhrisid waa buug aad u qiimo badan, waayo taariikhda Soomaalida marka aan ka hadlayno qodobada uu tilmaamayo iyo aragtiyaha hadda xag jirka oo jira iyo meelahay ka soo bilaabmeen buu xusaya. Qof walba oo raba inuu wax ka ogaado taariikhda Islaamka iyo Soomaalida, diinta iyo dowladnimada, waa buug aad u dhiirigelina aan ugu dhiirigelinayo inuu akhriyo helo, waayo qodob aysan cidna hore u xusin ayaa ku xusan buuggan. Soomaalida marka albaab hor loo furayaa oo meel aan hore looga hadlin buu ka hadlayaa. Marka dadka wax akhriya, dadka aqoon-yahanka ah buu si gaar ah ama falanqeeya diinta iyo dowladnimada buu si gaar ah muhiim ugu yahay, iyo ciddii baranaysa waxba dhinaca shar ahaan u qaadanaysa cilmi ahaan. Buuggan waxaa lasoo bandhigi doonaa marka toddobaad bishan January hadduu Ilaahay yiraahdo, waxaana lagu soo bandhigi doonaa lagu daahfuraya magaaladan London. Marka waxaan rabaa inaad u toog haysaan buuggaas. Sida loo heli karo wuxuu noqonayaa in asagoo buugahana waa lasoo bandhigayaa, asagoo suuqyada marketka online-ka ahna platform walba uu ku soo bixi doona hadduu Ilaahay yiraahdo, oo wadan walba aad joogtid waa ka dalban kartaa. Buuggan haddaan ka gudbo marka buugga labaad oo asaguna buug aad u qiimo badan waa halkan ku xusan. Buuggan magaciisa waxaa la yiraahdaa buuggan waxaa la yiraahdaa sida u jeedaan waa la moodaa. Buuggan waxaa qoray nin aqoon-yahan ku sugan wadankan Ingiriiska, Cabdicasiis Jaamac Carab la yiraahdo. Waa buug runtii asaguna wada cusub u furayo Soomaalida,
sawirkaad uga jeedaan waa gabar weeye, waa gabadhaas waa bug horta mala awaale sobaad arag, oo bugsan farshaxanka oo maaragtay fictionka la yiraahdo weeye. wuxuu saadaalinayaa gabadhan inay tahay gabadhii ugu horreysay Soomaaliya madaxweynenimada ka noqon lahayd xilli aan fogeyn. waa bug marka saadaasha markaan ka baxo, waa bug nolosha wajiyadeeda oo dhan ay ku xusan yihiin. waa bug dhinac qofka ama dhibaatada maanta lagu jiro eegahaya, ama waxa la soo maraa ee ay u muuqdaan, ama haddaba ku jira nabaro xanuun leh. waa bug tusinahaya dhinaca kale nolosha sida isku bedeli karto moogta. Soomada xanuun walba, dhib walba aad ku sugan tahay, rajadu inaysan dhiman oo waaye ka fiican waayaha xanuunka iyo murugada aad ku nooshahay ama aad soo martay ay kaa horeeyaan moogta. waana sababta buga magaciisa aad ka garan kartid, waa la moodaa markuu leeyahay. Soomaad arag buga qaybtiisa dambe waa bug tilmaamaya cid walba siyaasadda rabta ama mustaqbal inay dejiso rabta, qaabkay u mari lahayd u dejin lahayd buu xusayaa. habka gabadhan Soomaaliyeed ay ku noqon karto madaxweynaha buu xusayaa. wadada ay marayso, sida ma aragtay nidaamkan dawliga ah, qofka raba ma ahante qof qabyaalad ama koox inay u hiiliso raba xukun ku qabsado, shakhsiga raba inuu isbedel dhasho asagoo u adeegaya bulshadiisa, baahiyaheedana ka turjumaya siduu wadan hoggaan ugu noqon lahaa bay tilmaamaysaa qaybta dambe. waa bug qaybta horena aad ula yaabaysid cunsuriyadda ma aragtay qabaa'ilada Soomaalida dhexdeeda ka jirta, qabaligii la soo maray, dhinacan kale kooxahan argagixisada iyo howlahoodii, wajiyada xanuunka badan oo nolosha Soomaalidu soo bartay, weliba dumarku soo mareen oo in badan ka xusaya, iyo sida gabdhaha Soomaaliyeed aysan marnaba isku dhiibin. Soomaaliya waa bug marka aan oran karo bug hore oo maaragtay tilmaamaya noocaas ma jirin. Soomaaliya waa bug ugu horeeyo tilmaamaya gabdhuhu inay hoggaanka wadanka maalin untalada la wareegayaan, weliba sida uu xusayo oo buugga ku tilmaamay. marka buugga waa la moodaya asna wuxuu soo bixi doonaa isla bishan January, oo bisha soo socota January 7 kuna uga dhiman yihiin. waxaa laga heli karaa asagoo online ahna wuu soo baxaya isla bisha, asagoo buug ahaanna waxaa lagu soo bandhigi doonaa isla magaalada London hadduu Ilaahay idmo. marka buuggaasna u toogo haya oo noqda kuwa ka faa'iideysta. waxaa buugga ku xiga marka buug saddexaad oo madbacaddu Ciid Publishing ay soo saarnay. buuggan waa buug runtii xasuus qora, weliba qof aad u muhiim ah oo in badan aan jecelahay oo idinka mid ah inay taqaana asagana qoray. buuggan waxaa qoray mid ka mid ah hoggaankii nabad sugidda Soomaaliya, Soomaaliya arag taliye ku-xigeen ka noqday, sidoo kalena qaybaha dowladda meelo kala duwan ka soo qabtay. waa nin ku sugan magaaladan London, magaciisa waxaa la yidhaha Cabdisalaam Yuusuf Guuleed. waa bug runtii aad u cajaa'iba marka aad fiirisid nolosha iyo halganka uu soo maray. bugga magaciisa waxaa la yidhaha The Man Who Failed to Die, Soomaaliya arag, oo macnaheedu noqonayo ninkii ay ku adkayd inuu dhinto ama aan haleelin dhimashada. Soomaaliya arag, sababtu ma ahan ma dhimanayo ma ahan, laakiin waxay tilmaamaysaa inta dabin uu ku dhacay oo dhimasho ahayd oo asagoo ka soo baxay moogta. Soomaaliya arag, qof walba inuu dhimanayo waa ognahay, laakiin asagu dabinno badan buu galay, shirqoollo badan buu galay, meelo maaragtay halis ah bay naftu la martay marka laga hadlayo
waxa waddanka ka socda. Sidoo kale waxaa buugga ku xusahaya isla 3 xanuun oo saddexduba dhimashada kuwa horseeda ah inay saddexduba soo mareen, saddexdana uu ka kacay moogta. waa buug raba qofkii raba inay wax walba aad ku sugan tahay inaad ogsoon tahay wixii kuu qoran waa gaar inaad ka bixi karid horena u sii socon karid buu tilmaamaya. waa buug sida kalena marka aad akhrisid waayihii nin dhalinyaro oo noociisa oo Soomaali ah noloshii tahriibka wadankii nasiib darradii ka dhacday waxa uu marahayo noloshiisa si uu u badbaadiyo naftiisa iyo nafihii ku xirnaayo kale. jidadka uu marahayaad arki doontaa, xabsiyada uu galahayo wadamada Soomaaliya qof sharci haysan oo wareegaya, dhibaha uu kala kulmahayo midabkiisa ama wadanka uu u dhashay. waa buug run ahaantii ka turjumaysa dhacdooyin dhab ah oo dhacay moogta, maahan malaawaal, dhacdooyin dhab ah oo soo maray Soomaaliya farmaanintuu dhashay ilaa maantadan aan joogno moogta. waa buug aan leeyahay in badan oo ma aragta wax tirsanaysa inay akhrisaa u fiican si ay u aragto, waayo dhibaha iyo nolosha waxaad sheeganaysid iyo waxa dad maray markaad isku fiirisid caliyadaada dib u liqaysaa moogta. marka Cabdisalaam waxaan ku jeclahay waxa weeye inuu wax walba sida ay u dhaceen iyo sida dhabta ah uu u soo gudbiyay moogta. nin hadlahayo qalbigiisa waxa ku jiro toos ma garanaysa buu u soo gudbinaa. waa buug runtii xasuuso ku gelinaya laftigaaga markaad akhrisid. xasuusuhu ma ahan taariikhdu ka sheekeynaya waxyaabaha dhacay markaad aragtid dib baad u fakaraysaa, dib baad u laabanaysaa moogta. marka saddexda buug oo saddexduba aan aad ula yaabay, saddexdu qoraayo kala qoray ambaasadorka Cabdicasiis iyo Cabdisalaam, waxaan oran karaa saddexdu waxay ku soo kordhiyeen wax cusub qoraalkii Soomaalida. saddexdu waxay soo kordhinayaan taariikho iyo xogo ay muhiim u tahay casharo in badan oo Soomaali ah. buuggan marka cusub oo aan Cabdisalaam u qoray asna waxay noqon doontaa in lagu soo bandhigo isla magaaladan. labada buug ahaan oo Soomaali arag iyo asagoo online oo qofkii adduunku meesha joogtid aad ka dalbanaysid buu haddana aad ku heli kartaa buuggan. marka waxaan oran lahaa dadka xiiseeya inay wax akhriyaan aqoonta ama sheekooyinka labadaba inay buugta saddexdaa u tooqayaan. hadduu Ilaahay yiraahdo dhowaan baanan lagu soo bandhigi doonaa London, reer UK gaar ahaan. adduunka kalena waxaan rajaynayaa inaad online uga dalban karid waddan walba aad joogtid moogta. marka u tooqaya saddexdaa buug oo ah buugta sanadka cusub ku soo biirahaya qoraalka Soomaaliga moogta oo xafidan. una soo tahniyadeeya Ciid Publishing inay fursadaha idiin siisay dadka qaaliga buugtooda ay idinku soo bandhigaan. soona booqda Soomaali arag waxana hal la akhriyo. dad badan waqtigan la iskaga dhumin, laakiin akhrisku waa waxa badbaadin kara waddankeena moogta. maca salaama.